إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي سيف الضلال وبأحكام صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي. هدف كاسدتك مسلم كوقفك مركو مسلم نقضه ويول أما قول الراد عينيه لكن نرشو أهداف يريرو كسوكا يسيلاده وحال الربا أهداف يريرو سوكا إني أخد ميسو هدف كوين يعني وحكستو هدف كوين كوي عينيه وإنو النقضة وحان معنا بدنك تادك الصمينين مثلا إن الحوك ستو وشغيستي وأنتي يالتي ومباح ووح بنان نرشنا ولا قربه لكن هدي هدفك كوي دارين أيان كورر إلهي كو قرآن كو أماني وحلي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقوا المامي رغنمو الرجال ويان باليدي والرجال محي كسفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة إيا لعقت كسب الشديد كما ويعسه ما إلا وسيسه هدفكي وينه oo inuu salaad oogo inuu zakar la yimaado inuu ilaahay caabudo inuu xuso in aakhiro hortiisa ay taalo yakhaafuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin qulubta ay gagadoomayso idan hadafka weyni waxaan soko oo dhami dabab kuma ridaan ceeriyaan maaha ka qarin karta mushkilada dadka haysata ugu badan waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay هذا صلاة دميسان محل ينيري فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاة أمرك دميستان لولك كفاف إليه رزق دي سرات سدا ليلي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكن الكفاف هي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لقوه ارتقيا ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا مانت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولة وحلقيا بان انت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدي وكورن يوم القيامة هدات ساقده مالنت أن ساقد نمكا ويني جرين حلقيا بان ولايا هي عيبوبين وكورن قيامة مركا رير نبي آدم ودن الله سكينة هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية رير نبي آدم إلا كودن بيا قوبي تاقيهين هداد عيبوده waxaa laga yaabaa inaad sileedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka waran maalinta 50,000 oo sanadooda noloshaynu joogno dhamma waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin 50,000 oo sanadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50,000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sanadooda 50,000 oo sanadood baa taagnaanaysa 50,000 oo sanadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sanadood baa cadceedu halkan taagan tahay 50,000 oo sanadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sanadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sanadood baa ragga qaar harsanayaan oo carshu raxmaanka harsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiis madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyeysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysaa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay harsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday
nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka warran 50,000 sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowradan waxaa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul ammaan xaggee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhan kuu kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaybana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufraddan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta leh markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kalaba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro
kuwii islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala